السلام عليكم ورحمة وسمسم حسن وإذن لك سو دواada mar kale channelkayga maanta waxaan wax ka sheegi doonaa faa'iidada uu lawsku u leeyahay caruurta in caruurta la siiyo ama cuntooyinka loogu daro. Lawsku wuxuu faa'iido u leeyahay caafimaadka ilmaha, sidoo kale wuxuu lafaha ilmahana uu adkeeyaa oo u dhisaa, sidoo kale habka dheefshiidka uu wanaajiyaa. Lawsku wuxuu horumariyaa ilmaha maskaxdiisa, sidoo kale ilmaha wuxuu siiyaa lawsku energy uu siiyaa ilmahaas inuu ilmo firfircoon oo energy haysta noqdo. sidoo kale ilmaha wuxuu xagga miisaanka oo kale uu ka qayb qaataa miisaanka ilmaha inuu wanaajiyo. lawska waxaa ku jira fiberka macdanta loo yaqaano. sidoo kale lawsku wuxuu u wanaagsan yahay haddii aad ilmaha siiso xagga skinka oo kale. ilmaha lawsku wuxuu ka caawiyaa inuu ilmo concentration le noqdo, iyo memoryga ilmaha wax xafidkiisa ama xasuustiisa inuu ka qayb qaato uu wanaajiyo. sidoo kale lawsku wuxuu u fiican yahay wadnaha, wuu u fiican yahay. sidoo kale wuxuu wanaagsan yahay lawsku dhiig karka na wuu wanaagsan yahay. insha Allah ilmahaaga ku day lawska. caruurtuna way jecel yihiin, dadka waaweyn qudhoodu way jecel yihiin. insha Allah faa'iido fiican.